يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا. daawo waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah. صحب بقربهم السعادة والنجاة. amaanada markaad ilaalisay, xaaraanta markaad iska ilaalisay, ayuu ilaahay muxuu kugu abaalguday inuu ku siiyo aniga iyo guriga iyo wixii aad ka tagtayba oo xalaal ah inuu ku siiyo. بقربهم السعادة والنجاة. faatimada aan ka sheekaynaya ee axmed cabditawaab u dhalay waa aniga maanta idin hortaagan, macallimada idin ah. sidaa daraaddeed waxaan idin sheegayaa bay ku tiri khayr haddaad samayso waad helaysaa. بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه. adigu aabbahaasaad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma caruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan. دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواده برنامجka qisooyinka nolosha. daawada waxaan ku soo qaadanaa qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah oo ay tahay inay ku waana qaadano. aad ku qaadato ana aan ku waana qaato. daawada qisadan maanta aynu sheegaynaa waxay ku saabsan tahay waxaa jira nin khatiib ah oo imaam ahaa oo masaajid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn magaalada Dimashq khatiib ka ahaa. habeenada ka mid ah ayuu riyooday. markuu riyooday wuxuu ku riyooday rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo ku leh u tag jaarkaaga hebel waxaanad ku tiraahdaa waxaa tahay rafiiqii fi ljanna, qofka ila saaxiib noqonaya, ila derbi noqonaya, macayga noqonaya jannada ayaa tahay ku dheh. sheekha hurdada markuu ka soo toosay aad buu u yaaba. isagu waa imaam, waa khatiib, waa sheekh, laakiinse cidda laley u bishaaree maha isaga. waa nin miskiin ah, waa nin ka shaqeeyaba khudrawaadka iyo alaabta yare muxuu ahay fawaakihda ayuu ka shaqeeya. wuxuu sameeyey subaxii buu kacay, ninkiibu u tegay. ninkii markuu la kulmay wuxuu ku yidhi bishaaraan ku wadaa. bishaaradana waxaan kaaga wadaa rasuulullaahi muxamed sala allahu calayh wasalam, laakiinse kuu sheegi maayo ilaa inaad ii sheegto waxa aad samayso mooyaane. waxaad ku hanatay bishaaradan rasuulka aad ku hanatay inaad ii sheegto mooyaane sheekada iyo bishaarada aan wada kuu sheegi maayo. adigu ninkii wuu is adkeeyey bilowgii, markii dambe u sheegay. wuxuu yidhi waxaan guursaday gabadha aan guursaday buu yidhi iyadoo bishii shanaad aanu isqabno ayaa waxa caloosheeda ku jira ilma aad odhanayso wuxuu ku jiraa bishii sagaalaad. markaa ilmaha caloosheeda ku jira anigoo 5 bilood u qabay waxaad u malaynaysaa inay gabadhaasi marayso bishii sagaalaad uurka iyo xamliga ay wado. markaa wuxuu yidhi waxaa i caddaatay gabadheedu inay soo zinaysatay aniga ka hor. arrintaas marka ii soo baxday buu yidhi aan arkay gabadhu inay siido ilmo anigu aanan lahayn ayaa wuxuu yidhi waqtigaa waxaan karaayay inaan ceebeeyo, inaan furo. qaanuunku macaygu ahaa, qaanuunkaa ila jira oo reerkooda ila jiraya oo reerkayga i taageeraya, maadaama gabadhaasi ay ku kacday wax aad u xun. cid kasta way igu taageeri lahayd haddaan maalintaa furi lahaa, haddaan ceebay lahaa, laakiinse maan samayn buu yidhi. waan iska aamusay buu yidhi. markii soo dhowaaday xamligeed ay umushay ayaa waxaan sameeyey horta gabadh umulisaan u yeedhay. gabadhii baa gurigayga kaga umulisay. markii gabadhii laga umuliyey ayaa subaxyada ka mid ah markii ay umushay ayaan qaaday buu yidhi ilmihii yaraa ee umushay. masaajidkaan ku tukan jiray oo markaa salaada subaxa markaa la sii galayaan tegey buu yidhi.
salaada subax markii sida loo xidhay masaajidka ayaan albaabkiisa dhigay buu yiri albaabka sida markaan u dhigay ayaan salaadii galay salaadii markaan galay ee la tukaday ay dadku u soo baxeen ayuu ku yaraa ooye markuu ay dadkii baa maqlay way ku soo ordeen albaabku ka yariyaalaa buu yiri anigu dadka waan ka yara dambeeyo waxaan rabay dadka horta inay hor arkaan markay dadku sida ugu soo xoomeen qofkii yaraaye ilmaha ay dhashay ee ooyayay ayaan soo dul istaagay buu yiri kii yaraa baan qaaday buu yiri waxaan ku yiri ka yar anigaa haysanaya anigaa korsanaya igu duceeya halkiiba dadkii wada arkaya ilmihii yaraa aan qaatay igu duceeyay gurigiiba la tagay guriga markaan la tagay gabadhaydii oo uruursan baan u geeyay already marka iyada waan asturay oo dadkii inay caayaan waan ka asturay aniga naftayda waan asturay oo ilma aanan dhalinta inaan sheegto wax way sharcigu ma ogola kii yaraan noloshiisii waan badbaadiyey xaaskaygina waan asturay oo iyadana cifadeedii iyo runtii muxuu ahay mustaqbalkeedii waan badbaadiyey marka bishaarada runtii adii sheegaysaa halkay ka timaan filaya waa halkaas dawada qisadan waxay tilmaamaysaa haddii aad qofka muslimka asturto ceebihiisa aad asturto adigna ilaah waa ku asturaya qofka inaad daba gasho maha ceebihiisa qofkasta ceeb uu leeyahay qof aan ceeb lahayn ma jiro ceebaha inaad daba gasho ood soo fadhfadho oo kadibna aad weliba soo bandhigto aad baa lagu fiicaya weliba maanta aad baa u dhacdaayo social media waxaa laga yaabaa intaasoo ceebood oo qof lee in lagu soo bandhigo arrintaasi khatar bay leedahay marka inaynu asturno ceebaha qofka qaladka waad u sheegi kartaa laakiinse gaar isagaa ugu sheeg laakiinse ummadda inaad u soo bandhigto waa arrin aanu sharciga ogolayn intaasin ku soo koobana qisadeenan maanta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا